warbaahinta Mareykanka ayaa maanta si weyn u hadal haysa qoraal ay ILHAN Cumar soo dhigtay barta ay ku leedahay Instagram-ka oo ay ku sheegtay in iyada iyo saygeeda cusub ee TiM ay ugu dambeyn isguursadeen kaasoo muddo badan ahaa nin lagu xaman jiray in uu xiriir hoose uu ka dhaxeeyo balse marar badan ayay arintaasi ILHAN Cumar beenisay. waan guursaday waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda haddana waxaan ku nahay nolosha waa barako ayay ILHAN Cumar ku qortay sawir ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Instagram-ka. ILHAN iyo TiM ayaa dhowr jeer oo kala duwan muuqaalo iyo sawirro laga soo qaaday muujinayay xiriirka hoose ee ka dhaxeeya. TiM ayaa ILHAN garab weyn ka siiyay in ay u soo baxdo doorashadii u suura gelisay in ay ILHAN Cumar aado Washington balse guushaasi kadib waxaa soo baxay warar xan iyo xigasho isugu jiray oo sheegaya in ILHAN Cumar iyo TiM ay leeyihiin xiriir hoose oo aan ahayn midka dhanka siyaasadda taasoo horseeday in ay ugu dambeyn uu burburo qoyskii ILHAN oo ay kala tagaan saygeedii hore ee Axmed Xirsi ee u dhashay 3 caruur ah. burburka qoyska kadib waxaa sii xogeystay tuhunkii iyo xantii xiriirka hoose ee ka dhaxeeyay TiM iyo ILHAN. fariintani ayaa cadeynaysa in xantii muddada la aaminsanaa ay run noqotay balse su'aasha ugu weyn ee cid kasta isweydiinaysa ayaa ah guurka ILHAN iyo TiM qaabka ay isku mehersan karaan ama guurkooda u dhacay maadaama TiM uusan ahayn qof muslim ah ILHANna ay tahay gabar muslim ku abtirsata. war jiraaba cakaaro imaan doona waxayna sugnaaba waa jawaabta saxda ah ee culimada ay ka yiraahdaan guurka ay ILHAN bulshada u soo bandhigtay. deeq darajo Universal TV Minnesota.